رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. waxaa abaa hurayra laga wariyey alla raalliha ka ahaadee inuu yidhi wuxuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam qofka soomanaha ahi laba farxadood ayuu leeyahay oo uu farxaya. markuu afuro wuu farxaa, markuu rabbigiis la kulmana wuxuu ku farxaa soonkiisa. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba wariyey. markuu afuro wuxuu ku farxaa gaajadii iyo haraadkii in ay ka joogsadeen, amaba wuxuu ku farxaa dhammaysashada soonkiisa iyo cibaadadiisa. markuu rabbi la kulmana in soonkii laga aqbalay oo ajar aan yarayn laga abaalsiinayo ayuu ku farxayaa. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.